أيضا مدوينك لغا سو قد بيسي وينوغو فوغاناين مدحدا يسيدو كلا مسؤولين شركة Quality Education and Trade Consultancy QETC وشركة كدوان كشون ودن كماليزيا إذا مركانا سوين أقول دقاقدا كوبعينتا كروقاديدا درياليدا قونتا دايرتا يسكو حركة والدينتا معلمينتا ardayda jaamacadaha ku yaala wadanka Malaysia isla markaana si gaar ah mudooyinkii laga soo gudbay diiradda ugu hayeen sida ardaydu wax ugu baratay deegaanada Soomaaliland waxbarasho filaash uga helayeen jaamacada ku yaala wadanka Malaysia ee waxay saakana gudaha Hargeysa kaga dhawaaqeen tiro ka badan 130 arday oo waxbarasho bilaash ka helay jaamacada ku yaala wadanka Malaysia gaar ahaan jaamacada UCSI oo kamid ah kuwa ugu faca weyn marka la barbardhigo dhigooda jaamacadaha ka dhisan wadanka Malaysia halkani waa mid kamid ah hoolka Hotel Grand Hadi oo saaka soo buuxdhaafiyeen boqolaal kamid ah danayaasha waxbarashada bilaashka ay wadaan shirkadda Quality Education and Training Consultancy oo ku lamaan yihiin waalidiintooda oo aan ku ekeyn kaliya magaalada Hargeysa balse qaarkood saaka ka soo kala socdaaleen gobolada kala duwan ee Somaliland maamulka sare ee jaamacadda UCSI saraakiil ka socota wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiinta shirkadda Quality Education and Training Consultancy waxaana halka ugu horeyn sharaxaad ka bixiyay maraaxilkii barnaamijkan la soo maray ilaa hadda halka uu marayay sidoo kale qorshayaasha u dejisan Dr. Cabdilaahi Diiriye Liibaan oo ah gudoomiyaha guud ee shirkadda Quality Education and Training Consultancy muhiimadda loo aasaasay kambanigan waxa qayb ka weyn ka ah in loo raadiyo ardayda wadankeena scholarships jaamacaddan UCSI University aan in yar qeexo marka laga hadlayo jaamacadaha wadanka Malaysia qiimayntii ugu dambeysay ee soo baxday sanadkan 2018ka UCSI University waxay noqotay qaybta bareefadka ah ee jaamacadaha Malaysia kaalinta koowaad bay ka gashay waa number 1 marka laga hadlayo jaamacadaha Malaysia oo dhan kuwa xukuumadda iyo kuwa bareefadka ah waxay ku jirtaa kaalinta lixaad waxa la eegayay motivation ardaydu qaar waxay soo qorteen qaar chemical engineering qaar IT qaar business qof walba wax uu yiri waan baranayaa marka waxa la weydiinayay waxaan uu soo qorto yiri waan baranayaa ma ku qanacsan yahay wax ma ka sharaxi karayaa wax ma ka fahansan yahay ilaa waa mustaqbalkii ardayga wuxuu soo qortay taasina mid bay ahayd waxa la eegayay dhaqaalaha qoyska scholarship-kan marka la ardaygii waxbarashadii baa laga bixinayaa dabcan waad garan karaysaan oo qarashaad kala jira ardaygii waa in bil kasta loo diro maciishadiisii iyo biilkiisii marka waxa la eegayay ardaygani ma yahay arday iska bixin karaya noloshii wadanka Malaysia maanta guud ahaan ardayda guuleysatay markii la isu geeyo waa boqol iyo 5 arday weeye tiradu dhankooda waxa iyaguna goobtaasi ka hadlay Nimcaan Cabdi Cali oo kamid ah ardaydii wax ku soo baratay jaamacadaha ku yaala wadanka Malaysia Maxamed Xasan oo ku hadlay afka waalidiinta ardaydoodu saaka guuleysteen Mahad Ibrahim Maxamed maamulaha guud ee dugsiyada Nuuruddin oo dhankiisa ku hadlay afka maamulka dugsiyada sare ee Somaliland oo kuwa laga soo xuray ardayda Professor Muuse Shide agaasimaha waaxda waxbarashada gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland iyo sidoo kale Dr. Jimmy gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda UCSI oo dhankeeda waxbarashadan lacag la'aanta u fidisay ardaydan la soo xulay qoladan runtii inoo keentay UCSI University I thank you so much on behalf of the schools both public and private schools in the country jaamacaddan laba arday oo kuwa ugu horeeyay marka ka dhiganaya jaamacadooda ayaan kamid anu laba arday baan dhalay oo nimanka jaamacadda UCSI ku jira oo sanadkii hore Mr. Dr. Cabdilaahi iyo nimanka isku xirka dadaal badan ayay sameeyeen dadaalkii maanta anaga jaaniskii maalintaan helay jaaniska imka Cabdilaahi tirnaya uu ka fiican yahay jaaniskii marka sanadkii hore aan helay oo nolosha halka taala waa very advanced wax kasta waa laga helayaa Malaysia maanta walow ixtaayada ka qurux badan wadamo badan oo Yurub ku yaal marka waxaan ugu dhiirigelinayaa inaad saa uga soo faa'iideystaan ay Dr. Cabdilaahi uga soo faa'iideysteen It's just because you are fortunate that you're born in the family where you can perform. Salaanka inuu qofku fuulo ayaa muhiima si uu dabeedna fikta ama qiimada u gaadho waxaan leenahay aad muhiim u ah oo aan aad u hambalyeynaya una riyaaqsanahay dhalinyarta muwaadiniinta ee reer Somaliland ee gurmadka sameeyay ee sahanka galay ee raadiyay halka ubadkoodii
aqoonta ee raadinayay ay ka helayaan qadhiidh xoolihii baa ka maarmi waaya in loo sahamiyo halkee cosob leh halkee baad leh halkee biyo leh waaba se bashar iyo bani aadam inamada hawshaa galay ee hawshaa qabtay ee ka midha dheliyey aad iyo aad baan u hambalyaynayaa waxaanan qirayaa inay yihiin muwaadiniin xalaala oo raadinaya cid dalkooda iyo dadkooda gacan qabata munaasibadda ayaa guud ahaanteed ku soo dhammaatay jawi farxad ay ku dheehan tahay oo Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.